Soomaali waa idin salaamaya meel kastoo dunida joogtaanba. Waxaan rabaa halkan inaan xaal ka bixiyo oon ka raali geliyo Soomaali guud ahaan meel kastoo dunida joogtaanba. Reer Ilaahay nacay oo cirka laga nacay oo dhulka laga nacay oo Soomaali nacday ayaa reerkii aan ka dhashay inta lacag loo qaybiyay oo afkoodii laga kireystay dibadda u soo baxeen ayaa waxay amaanayaan Muuse Biixi iyo SNM ayay amaaneen. dee annaga aqoon-yahan u ah dadkaasi waa innocent, dembi ma leh, waa la noo weydaartay. nin la yidhaahdo ina aw Siciid oo isagoo tuuga ka yimid Gabiile oo Jabuuti ku lacagaystay oo dhaqaalihii Jabuuti ku lacagaystay oo Jaanis ka helay halkaas oo naas nuujin ka helay ayaa xoolaha yagi ku abyuusaya dadka yagi oo Geerisa la tagay oo Lughaye la tagay oo Saylac la tagay oo Xariir la jooga oo rayaashii dadkii halkaa joogay buu afkoodii kireystay oo lacag siiyey kaarashina uu ka iibsanaya. anigu markaa waxaan rabaa inaan dadkii Ciise ee halkaa ka hadlay iyadoo halgan lagu jiro oo nu halgamayno Awdal State halkaa waxaan taageernay yiri maamulka xaaraanta ah ee saaqidka ah ee Muuse Biixi wato waan taageernay yiri ayaan rabaa inaan xaal ka bixiyo. waxaan rabaa bakti bay cuneene inaan ka soo matajiyo. waxaan rabaa inaan nijaas wey waxay cuneene aanu luqluqo. waxaan rabaa inaanu cadayo. dembiga iyagu ma leh, waa dad iska baadiye ah dadka uu ninkaasi isticmaalay. ninka dadkaygii abiyuusay ee noo weydaartay ee dadkaygii abiyuus ku sameeyey ee yidhi Muuse Biixi amaana maamulka habar awal amaana ninkaasaan la xisaabtamayna. idinkuna waadna ceebayseen wajigiin gubay. war Somaliland maxaad ku leediin maamulka reer baa iska leh, reer Isaaq la yidhaahbaa iska leh. dagaalkii waa la gallay, waad ogeydeen, godob bayna geliyeen, abtiyaasheen bay nagu direen, godob kaleyna geliyeen. dowladdii Soomaaliyan la duminay maxaad ka faa'iideen? ciisow iyaa ii sheegi kara waxa waxaad ka faa'iideen oon afxumo ahayn. maanta habeenay dharaar dowladda Jabuuti caayaan, madaxda Jabuuti caayaan, caqaashooda, dumarkooga, odayaashooda intaysa soo raacaan oo soo fadhiistaan ayay waxay caayayaan madaxweyne Ismaaciil Margel cay la fajaba. markaas sidee baa damiirku idiin siiyey idinka? magaaladan Geerisa ee odayaashu ka hadlayaan, Geerisa Xasan Guuleed baa ku dhashay, anigaa ku dhashay, kiin Geerisa la yidhahda. Ismaaciil Margel ka soo jeeda, waxa waxa madax badankooda halkaas ka soo jeeda. saad intaad soo urursataan ad Geerisa uga hadashaan ood Geerisa u nijaasaysaan. Geerisa waan meedhaynaa gebigeedaba, waayo waa nijaasaysay. waxayna u qalmin baad ka dhex tiraahdeen. war sideed habara war uga ammaantaan Geerisa? halkan eeg 73 mas-uul oo habara wala ayaa Jabuuti madax ka waa 73. waa kuwan liiskoodan hayaa. idinku hal kursi ma ku leedihiin? hal kursi ma ku leedihiin baarlamaanka Soomaaliland? sideed u ammaani kartaa maydaan xishoone? damiirkii mee awa damiirkii bini'aadam haddii afkiina la kireystay oo dhaqaale lagu kireystay oo sidaa ku hadla la yidhi awa damiirkiina idinka? damiirkana maa laydinka kireystay. waxaa jira siyaasadda wax la yidhaahdo political prostitute, waa ka dhilaysiga siyaasadda oo dad marka aad lacag siiso wax ka doonayso lacag baa la siiyaa. waa ka dhilaysi, ma aha qofku doonitaankiisii wax kuguma qabanayo, laakiin lacag baa la siinaya. maxaan idinku yeedhaa idinka? ma afkiinaad ku dhilaysateen baan idin idhaahdaa? waxaa idhaahdeen oon idma garanayo. sharaf darro iyo karaama darraad soo jiideen. dagaal baa lagu jiraa, halgan baan ku jirnaa, maamul baan samaynaynaa. Awdal State dhaqaaloo dhan baad haysataan, dhulkiinu u buuxaa, macdantii buuri iyaad leedihiin, baddii baad leedihiin, webi baa idin dhex mara qabri baxar la yidhaahdo. Jabuuti iyo Awdal State baan isku xidhaynaa oon halganka ugu jirnaa. ma dadka halgamayaad iyaad aflagaadaynaysaan? ma nimanka halgamaya ee u halgamaya inay idinka xoreeyaan
maamulkan daalimka iyaad ammaanaysaa iyaad afalgaadaynaysaan dhammaantiin waa laydin xidhay idinka Jabuuti haddaad tagtaan dambiilayaal baad tidhi intiin halkaa joogtay faamilkaygii baa tawaa wada garanaynaa xadhig baad diyaaradeen idinka waayo maalintii la halgamayay baad halgankii ka soo horjeesateen halgankii baad ka soo horjeesataan reerkan ilaahay baa nacay cirkaa laga nacay dhulkaa laga nacay Soomaali baa nacday afxumadoodii baa la nacay xabashi baa nacday oromaa nacday dirir baa nacay irir baa nacay carab baa nacday waa afxumadooda sidaa ay u caayayaan Jabuuti ayay cid walba u caayayaan kibirkoodii iyo isla weynidoodii iyo isqaadqaadkoodii ilaahay wuxuu soo diray shimbiro dayran abaabiina wuxuu soo diray dhulbaanta ilaahay u soo diray baalkii daauska naburka laha weyn dhulbaanta la xasuusiya markay kor isku qaadaan imika ee dhaadaan xamar baan qabsanaynaa iyo garow waan qabsanaynaa iyo meel baan qabsanaynaa markay dhaadaan dhulbaanta loo sheega naburkii daauska ayuu ku noqday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in la helo qolo kale koox kale ay soo baxdo oo dadka ka aamusisa reer kale oo cayda ka mas'uul uga noqoto oo caydan ka joojisaan ilaahay ka rajaynayna ay caayayaan ummadda ee aflagaadaynayaan kibirkiya waxaa waa la soo afjaray caydana in la soo afjaro ayaan rajaynaynaa awdal state soo afjarto awdal state waa diyaar dhaqaalihiina way haysataa garab iyo gaashaan way haysataa wax alla wax ka maqan maanta ma jiro dhawaanna waa lagu dhawaaqayaa awdal state maamulka awdal state kaasaad wax ka noqonaysaan kaasaad caqaal ka noqonaysaan kaasaad baarlamanka galaysaan kaasaad golaha guurtiga galaysaan kaasaad madax ka noqon xorriyad u shaqaynaysaan reer baa idin adoonsanay dhulkiinnina way idinku haystaan Jabuutina way qabsadeen waxba kuma haystaan Jabuutina halkaana waa laga xoreyni awdal statena waa laga xoreyn maanta awdal state laga xoreeyana halka masiibadu ka imanaysa waa Jabuuti meesha ay ku dhargeen ay ku kashbaceen ay waliba double agent yihiin double standard agents bay yihiin waa laba wajiilayaal meel kale u shaqeeya waa wadacaan laba wajiilayaashood odaga cali bordel inantiisu qaahirey joogta Jabuuti bay aflagaadaysaa cayda ururka dumarka iyo ururka abara wale wax aflagaaday iyada u madax isna halkan uu ku qaataa lacag waxaa soo dhan baan la soo afjari doona haddii alla yiraahdo waa in la soo afjara Jabuuti iyo awdal state waa inay gacmaha isqabsadaan dadka reer Jabuuti waa inaad toostaan cadow aan reerka ahayn ma lihidina cadow aan habar awal ahayn ma lihidina gabadh habar awal ka tagtay Jabuuti kaartiseed bay gashaa waxay u tagtay ninkii jabhadda afarta madaxda ka ahaa way soo hambaliyeenis tii habar walba ahayd qaahire joogta ilaa ciise meesha ma dego calooshoodu waa wadataa laba dul qaadan karo dhibaatada inagu hayaan reerkan dhibaatada ay dadkeenna ku hayaan dalkeenna ku hayaan ciideenna ku hayaan calankeenna ku hayaan midnimadeenna ku hayaan dowladnimadeenna ku hayaan wax la dul qaadan kara ma double standard agent weeyaan calan bay hoosta ku wada sitaan meel laga aqoonsan yahay dunida jirin oo inagula xuloobeen dan gaara dan ma wada yeelan karno af 3 kan isku dan ma nihin danta Jabuuti lagalama hadli karo dan kale leeyihiin iyo calan kale leeyihiin shadaalkeeni bay haystaan amay shadaalka ayay haystaan maaweel ninka la yiraahdo iyo tiimkan uu watay reer Gabiley Cali Axmed baa la yiraahdaa Canada Cali Axmed ayuu ka qoran yahay tiimkaas dhulkeeni haysto oo ku dhargay oo ku kashbacay inaad wax ka qabataan baa markaa loo baahan yahay ciiso waxaan wax la dhageysan karo way ka badan qoladaana annaga xaal ka bixinay dambi waxaan ugu qaadaan inay innocent ahaayeen dad juhala inay ahaayeen ma qorayna waayo dad caqli leh oo aqoon leh oo garaad leh oo garasho leh oo official loo meel shisha wax ka arkaya afkooda lama kareysan kareen kuwa xariirad ka hadlayay iyo kuwa sayrac ka hadlayay iyo kuwa gaarisa magaalada aan ku dhashay in ka soo jeedo aniga waxa la yiraahdaa King Garissa
ayaa la yidhaahdaa ay ku ceebeey ceeb bay iyo la yimaadeen ceeb bay noo soo jiideen laakiin waan ka maydhayna haddii la yidhaahdo saasaan damacsannahay soomaali waan islaamayaa meel kasta ood joogtaanba annaga halgankeygii waan wadnaa waxaayoo kale markaad aragtaan waa odayaal afkoodii la kirayste naga raalli ahaada